بسم الله الرحمن الرحيم شرقدونك قولها بارلمانك جمهورية الصوماليلاند مدنياشا قولها بارلمانك شرفت له قدوميها محكمة السرع حبناها قولها وزيرها تلياشا ciidamada qalabka sida marti sharafta shacab weynaha Soomaaliland guud iyo dibadda meel ay joogaanba assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaan kadib waxa sharafi ah iyo xurumo in aan maanta hor imaado golaha baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan ka jeediyo khudbadii sanadka 2020 sanad waliba waayihiisu leeyahay iyo marxaladihiisa sanadkii tagay 2019 Soomaaliland wuxuu ugu santan yahay sanad nabadeed sanad midnimo sanad barwaaqo ilaahay roobina siiyay iyo sanad horumarineed walaalayaal hadalkaygu wuxuu ku koobnaan doonaa dhowr qodob ka horeeya waa dhaqaalaha adeega bulshada nabadgelyada ka dhagaha loo taagayna way dambeyn doonaan dhaqaalaha waxaynu ognahay dal waliba wuxuu ku hormaraa waa dhaqaalaha nolosha dadka oo dhan dhaqaalaha ku xiran tahay dawlad kasta oo caalamka jirtana dadkeeda waxay ugu xirsaartay dhaqaalaha waalidku wuxuu u xirsaaran yahay carruurtiisa guriga iyo ubadka dhaqaalahooda odayga reerkuna wuxuu ka mas'uul yahay reerka uu hayo inuu meel dawlad dejiyo oo uu u sahamiyo oo xoolaha iyo deegaankaba uu dhaqaaleeyo marka dhaqaaluhu waa halbowlaha nolosha halbeega dhaqaalaha ee caalamku ku xisaabiyo GDP la yiraahdo jamhuuriyadda Soomaaliland wuu kordhay sanadkii 2 sano soo dhaafay 2%. marka loo eego adduunka waa meel hoose Afrika oo dhan marka la eego jimcada qurama ka dhaxaysa ay qiimeysay dhexdhexaadkeedu uu koraya Afrika dhaqaalaheedu wuxuu koraa 3.4%. waad arkaysaa Soomaaliland way ka hooseysaa sababtuna waxa weeye duruufo badan oo inoo gaara oo ay ka mid tahay inaan aynaan la xiriirin baanka adduunka iyo hay'adaha caalamiga ah oo aynaan wax la wadaagin in aynaan dawladaha caalamka ka qaadan karin amaah iyo wax soo idaarsi iyo deeq toosa oo adagtii sababta ay waxa dhiban tahay dagaalka ay ugu jiraan dawladda Soomaaliya waxa lagu guuleystay in sicir bararka hoos loo soo dhigo 2 sano u dambeeyay 19 laga soo balaabay isagoo jooga maantana uu marayo 4%. dakhliga dalku wuxuu kordhay sanadkii dhaweyto marka loo eego oo daraskii la sameeyay 4.5%. shilinka Soomaaliga qiimihiisa waxa hoos loo dhigay waxa kor loo qaaday oo uu qiimihiisu kor u kacay 1.22 2 sano u dambeeyay waxa miisaaniyadda qaranka sanadkii tagay 2019 waxa laga maalgeliyay mashaariic qiimahoodu dhan yahay 150 bilyan 400 milyan 135,320 Soomaaliland shilin sanadka soo aynu imika bilownay 2020 waxa laga maalgelin doonaa mashaariic horumarineed dalka oo qiimahoodu ku kacayo 158 bilyan 827 milyan 455,889 Soomaali shilin mashaariicdana waxa laga fuliyaa gobolada oo dhan waxa la hirgeliyay nidaamka xisaabaadka dawladda ee loo yaqaano BFM nidaamka maaliyadda wuxuu kor u qaadi doonaa hagaajinta iyo kor u qaadida nidaamka maaliyadda ee dalka cashuur qaadista kordhinta dakhliga dalka beekhaaminta iyo kantaroolka kharashaadka dawladda wuxuu awood siin doonaa adeeg bixinta adeega loo bixinayo la siinayo bulshada
hirgelinta mashaariicda horumarineed iyo kobcinta dhaqaalaha dalka guud ahaan dal kasta waxa saameeya hadba waxa jira caqabado dhaqaale oo waaweyn dal waliba ka ugu weyn ugu dhaqaalaha badan caqabado dhaqaale uu ka cabanaya inaga waxa ay horo kacnay ee taageen wada iyo cidina taageeray wali waxayna hor yaala caqabado waaweyn oo aynu u baahanahay in qarankoo dhan isugu tago qof iyo koox iyo aqoonyahan iyo karhermiga ah iyo ka badda jooga qof waliba uu aqliga ku qaado inuu ka mid yahay dhibaatada dhaqaale dalka inuu wax ka qabto oo ugu yaraan la fihiisa isagu sidoo isu maamul ku xiriir dhaqaalaha dalka walaalayaal waxaanu nahay dal ay aad u kala fog yihiin waxa uu soo dejiyo iyo waxa uu dhoofiyaa sanadkii 2019 waxaanu soo dejinay badeecad qiimaheedu yahay 527 milyan 713,970 dollar 527 milyan oo dollar badeecad joogta ayuu soo dejinay oo ugu badan yahay qaadku waxaan dhoofinay 211 milyan 782,850 milyan faraqa inoo dhaxeeya waxaanu diray iyo waxaanu soo iibsanay waa 360 milyan 981,000 iyo 118 dollar bal u fiirsada xilwaano deficientka aynu ku jirno waxaan goofinay iyo waxaan soo dejinay waa 360 milyan qaadkaynu intaan ka dhoofinaa waa 500 aynu sanadkii cunaa in soo gaa lacagta deficientka ah ee inta leeg ee misaaladeenu saa isu khilaaftay waxa kaba ilaahay ma ka gaadhay qurba joog bilkay soo diraan iyo dadaalka uu sameeyay dalkooda iyo dadkooda marka qurba jooga iyo hay'adaha inala shaqeeya lacagta qaraad ay soo galiyeen haddaba si aynu uga baxno khasaaraha waxaanu soo dejinaa iyo waxa dhoofinaa ay kala badan yihiin dhammaanteen waxaanu waajibay inaan dhaqankeena wax ka bedelo waxaanu nahay ummad fuqara ah oo haddana waxaan afafka qaad ugu dhahdo haddana istihlaak wuxuu kharash garaysa oo waxba dhigan wax margato wali rag hoo badnaaday haddii maalintii 20 dollar soo gasho 20 kaba ugu weeyay wuxuu ka hormarinayaa daruuraadka qaadka iyo balwadiisa ay ka hormarinayaan marka walaal tirada waxaan u soo qaatay inay umadu fahamto dhiig baxa ku jira dhaqaalaheena dadka qurbaha jooga lacagta ay soo dirayaan dadkii waaweynaa ee dadka xiriiraya way say gabaabsi duruufihi adduunka uu isbedelayaan dhalinyaradii tagtay ee halka ku dhalatay iyaga waxa xaseeshay waa xaaladu way si yaraanaysaa ee marka haddayna isku tashan in badan bayna soo taageereen oo aynaan dalkan u fikirin waliba golayaasha qaranka ee dejinta leh maxkamadda leh ee fulinta leh iyo ganacsatada dhaqaalaha dalka haysa iyo qof waliba haddaan xil ka saarin walaalayaal mustaqbalkeedu ma fiicnaanayo haddayna wax ka jiraan kana wada saan uga baxna taa dadaal badan baa la sameeyay inuu warshado yar abuuro oo iyagoo dhibaatadooda leh oo markuu ninkii warshad soo iibinayo assurance-kii iyo RC-gii wax badan ay ka cadban yihiin dawladdu waxay ku tala gashay inay caawiso xukuumad ahaan waxaanu sababta ku caawinay warshadaha iyo qalabka ay soo dejiyaan 15 milyan oo dollar oo cashuur dhaaf ah si ay u helaan wax soo saarka beeruhu sanadkan aad buu u wanaagsanaa ilaahay ma hadii roob badan baynu helay nimca ilaahay baynu dadkuna waa dadaaleen waxa 240 saacadood loo qaybiyay qoysas dan yar ah 14,000 oo qoys si ay saacado u qotaan gobolada oo dhan waxa loo qaybiyay dad kale beerleyda la waraabiyo ee beer roobaadka ahayn ee beeraha biyaha dooxaya ku dhadhow 4,750 mitir oo tuubooyina oo ay kaga soo baxaan biyaha marka dooxii beer ijaarkii mid u dhawaado kii labaad kii saddexaad waa inaan tuubada dheerayna si ay beeraha u badino waxaana loo qaybiyay qoysas gaaraya dhowr iyo 14 qoys waxa la bareejiyay oo dawladdu bixisay 7 cagaf
oo la siiyey magaalooyinka beerato iyo oo togdheer iyo daadbareera waxaa beeraha sanadkan soo go'ay dalag aan filayna inuu ku filaado ugu yaraan bil ama laba dalkeena haddii si fiican loo isticmaalo waxaa cudurro kala duwan laga tallaalay 3 milyan oo neef oo xoolo ah waxaana ka qayb qaatay 38 kooxood oo ah kuwa xoolaha caafimaadka xoolaha qaabilsan waxaa la daweeyey malyan iyo badh neef oo isugu jira ari geel lo iyo fardo waxaa calafka xoolaha loo qaybiyey lagu naaxiyo loo qaybiyey 19,550 qoys waxay xukuumaddu soo iibisay 4 doonyood oo la doonayo in lagu tababaro dadka si ay uga faa'iideysan khayraadka badda kaabayaasha dhaqaaluhu sida wadooyinka dekedaha iyo garoomada diyaaraduhu waxay qayb weyn ka yihiin horumarka dalka waxaa si xawli u socda ballaarintii iyo casriyeyntii dekeda berbera waxaana dhammaaday wejigii hore 43%. waxaa la dhisay oo hadda la bilaabay dhismaheedii oo ilaa 7% gaaraya berbera corridor wadada isku xidhaysa berbera iyo xadka Itoobiya wajaalay waxaa dhawaan la bilaabi doonaa dhismaha wadadii ka leexanaysay Hargeysa marka berbera laga soo baxo si culayska gawaaridu waaweyn magaalada aanay u ciriiriyeen oo 22 kiiloomitir ah waxa dawladda Soomaaliland iyo Imaaraadka Carabtu ku heshiiyeen in madaarka berbera oo ka Afrika ka weyn 4 kiiloomitir iyo 500 oo dhisan in garoonkaas uu noqdo mid madeeriya oo baaci mushtarka ka qayb qaata oo diyaaradaha caalamka isaga goosha wadada Burco Ceel Gaabo waxa dhamaaday 201 kiiloomitir 94 dawladii hore dhistay inta kale 107 kiiloomitir laba sano dambe la dhisay waxa la dhisay 449 kiiloomitir oo kamid ah wadada isku xidha Hargeysa Kalabayd waxa dhamaaday bridge-ka isku xidha Amuud iyo magaalada Boorame waxa dayactir ballaaran lagu sameeyay jidka isku xidha Laascaanood iyo Tuulo Samakaab iyo Ari Cadays waxa dayactir lagu sameeyay bridge-ka labaad ee magaalada Burco waxa la wadaa mashruuc casri ah oo lagu xakameynayo xawaaraha gaadiidka shirarka gaadiidka oo nagu batay awood sanadkii u dambeeyay 19 waxa shil baabuur ku dhintay 247 qof iyadoo oo laga duulayo muhiimadda oo daryeelka iyo kor u qaadida adeega caafimaadku u leeyahay bulshada dawladdu waxay xoogga saartay sidii ay dadweynaha u heli lahaayeen adeegyo caafimaad oo tayo leh waxa mudnaanta gaar ah la siiyay adeegyada caafimaad ee qaybaha bulshada ugu nugul sida xarumaha daryeelka hooyada iyo dhallaanka waxa si rasmi ah xarumaha caafimaadka dawliga ah looga shaqaaleysiiyay 512 xirfadlayaal caafimaad waxa tababar loo furay aqoon kororsi ah 3,100 xirfadlayaal caafimaadka ah si kor loogu qaado aqoontooda iyo hufnaanta caafimaadka waxa cisbitaalada xanaanooyinka iyo ruuxa caafimaadka lagu daaweeyay 526,273 qof waxa markii ugu horeysay ilaahay mahadii lagu qalay 10 caruur oo wadnaha wax ka qabay oo lagu guuleystay dhamaantood qalinkoodii iyadoo dawladuna dhammaan kharashaadkii caruurta ay qaaday waxa la hirgeliyay 22 xarumood oo adeega caafimaadka ah oo lagu kordhiyay dhismayaashii hore ee jiray mudanayaal iyo marweyn waxbarashadu waa furaha horumarka waana iftiinka nolosha iyadoo taa laga duulay xukuumaddu waxa ay hirgelisay kulliyadda tababarka macallimiinta
waxaan daraasadda ku eegnay markii aanu darisnay in maanta cusbitaallo badan oo caafimaadku adeegana aynu leenahay waxbarashaduna ta dowladda inta gaarkaba iskuulladu fara badan yihiin laakiin loo baahan yahay la gaaray wakhtigii tayada caafimaadka iyo tayada waxbaridda iyo waxyaalaha daruuriga sida cuntada oo kale dhammaantood tayadooda la hubin lahaa ayaynu gaadhay mar xarbeen marayna mar dugsiba lama hayno waxa lagu fadhiisanayay qasacado geed baa loo fadhiyay mar yaa iskuulaha la dhisay mar meel carruurta la gaarsiiyay mar caafimaadba lama haynin mar wuxuuna la soo dejiyay laakiin waxaan u aragnaa in la gaaray waqtigii tayada aqoonta iyo caafimaadka iyo cuntada la sixiraha la gaaray la ilaalin lahaa saa daraadeed waxaan furay kulliyadii macallimiinta 400 oo ugu horeeyayna waa la qaatay waxa deeq waxbarasho loo diray 450 arday waxa bishii Febraayo sanadkan si rasmi ah u bilaabmay arday kasta oo dhigta dugsiga hoose dhexe in la gaarsiiyo buugaagtii waxbarashada ee sanadkii hore intii aanu qaybinay hore mooyee sanadkan waxa la qaybiyay 100,000 oo buug oo la gaarsiiyay dhammaan daafaha dalka iyo gobollada oo dhan waxaana ka faa'iideystay arday gaaraysa 153,000 iyo 770 waxa la shaqaaleysiiyay 400 oo macallin oo cusub oo la geeyay dugsiyada ku yaala gobollada fogfog waxa dhacda dugsiyada waxa loo dhisaa baahi badan baa jirta in magaalo walba loo dhiso dugsi magaalooyinkana way bateen oo meel walba magaalo laga sameeyay oo waxa la magaalooyin isu jira 10 kilomitir ama kaba yar marka magaalo walba soo degay carruur baa joogta carruurtaasina iskuul baa bahatay dhaqaalaheena kolba inta ma wada gaaro marka hay-ado ama qurba jooga ayaa dugsiga dhisa marka dugsiga la dhisa dawladda waxa ku waajibay in macallimiinta gaarsiiso taasoo ka xoog weyn xawliga iskuulada u koraya xawliga dhaqaalaheena yahay hase yeeshee sanadkan waxaa mushaaharo loo qaaday 400 oo macallin oo si mutadawacnimo ah ama tabarruc ah wuxuu bari jiray ardayda waxaa la dhisay sanadkan 200 iyo hal fasal oo cusub oo lagu kordhiyay 102 dugsi oo ku kala yaala gobollada Awdal Togdheer Sanaag Sool iyo Saaxib mudanayaal iyo marwooyin waynu ognahay dalkeena biyuhu waa ku yar yihiin magaalooyinka badankoodu waa haraadan yihiin marka roobku raago reemiga waxa ku dhacday dhibaato biyo la'aaneed diyaar garow waynu baahanay biyaha ah waxa la qoday 2 sano u dambeeyay 2 ceel oo dhaadheer bariga horena 160 ka badan baa dawladdii kulmiye iga horeysay ee si ay hogaaminay qoday waxa la dayactiray 66 ceel oo kuwa dhaadheer waxa la dhameeyay sahmintoodii oo hadda la qoday 33 ceel oo kuwa dhaadheer waxa la qoday 8 dhaan ama baliyo waaweyn xafiir la yiraahdo waxaana la dayactiray 12 dhaan oo la dhoobo qaad waxa la qoday 103 barkadood oo cusub waxaana la dayactiray 203 barkadood oo hore u jiray dhammaan gobollada oo dhan waxa biyo balaarin laga hirgeliyay magaalooyinka Hargeysa Burco Berbera Ceergaabo iyo Boorama waxa saamintooda lagu jira biyaha laascaanood waxa meel fiican maraya oo lagu diirsado maraya biyo balaarinta magaalada Hargeysa biyo soo saar iyo biyo qaybu mashruuca soo qaabilsan inagu caawiyeen hay'aduhu 66 milyan baa ku baxay dhowr sano socdaa uu raagay ee damarihina qolada maamulaysa laakiin biyo soo saarkii 80% baa dhamaaday imika biyo balaarintiina 30% bay maraysaa si aynu biyo balaarinta magaalada u fududeyno oo u dheereyno maalin walba halkii qasbada la gelinayay nin baa oraya aniga loo dhismaayo waqtigeena la dhisa halkii qasbada la dhigay ee la soo mariyay waa mid ka dul dhisay guri amastan dawladdu hoosana way maqlaysaa wasaaradda arrimaha gudaha joogtaa waxay baahantay arrintaasi in wax laga qabto la yaab ma leh meeyarka iyo barasaabkii dakhliga dadka leyn maayaan war halkan waa qasabadii amartay ee ka baro hadegi qofka garan waaye maalin walba buuq iyo xarig iyo darshad galmeeyay waxaan soo jeedinayaa inuu dadku taa iska baraarujiyo oo meelihii danta caamka ah wadadii iyo halka biyuhu marayay iyo halka leerka la marin lahaa dadku ay maqlaan dawladda ila maalba saysarmaynay marka qofka la isku dhacana waa buuq kala soo kordhay odayga xildhibaanka waxa loo cararaya odayga la xildhibaan leeyahay marka waxaan leenahay arintaasi waan nolosheena aan ka wada hawlgal
shaqo abuurka dhallinyaradeen inkastoo inuu dadaalay oo dhaqaalo sameynay oo shaqo qaran abuuray haddana inta badan waa shaqalaad waana dhibaato adduunka jirta inagana gaar ahaan inoo haysata iyadoo afriba sabool ay wada tahay oo aynu la qabno saboolnimada dadka haddana waxaa inoo dhoor godoonka laynaga goodoomiyey inaan la xidhiidhno hay-adaha caalamiga sidaa darteed waxaanu bilownay in dhallinyarada aynu isugu geyno labada gacmoodba qaranka oo dhan dowlad iyo dadweyne iyo ganacsatada si shaqo loogu abuuri lahaa waananu u abuuri karna haddaynu isku tashanno oo dhaqaale aynu ugu samayno warshado iyo hawl mashruucyada ku hawlgalaa waanu samayn karnaa ganacsadana waxaanu soo jeedinayaa inay mashaariic waaweyn maalgeliyaan waddada isku xidha burciyo oodweyne lacag badan oo baahan ganacsadaha maanta shirkadana ka mid a maalgeliya way karayaane wuxuu ku qaadan karaa waxaan la idhaahdo tool inuu dhigto dariiqa laga dhiso custom waqti go-aan loo qabto uu xooliis kala soo bixi karo 25 sano 20 sano intay ku soo baxaysa inta la isla eego intaasoo kula dhalinyaro shaqo ka helna iyo mashaariic waaweyn oo kale lamid ah waa la abuuri karaa dhaqaaleeda waa leedahay waa iskaashi iyo aaminaada inaynu maalkeena gelino dalka aynu u baahannahay taana waxay ku xidhan tahay hogaaminta dowladda oo dhan xukuumaddu koow ka tahay golayaasha sicdajirtuna laba ka yihiin maxkamadaha oo dhankii ganacsadaha uu ku dhirado haddii xaqiisa ama lacagtiisa muran ka galo inuu maxkamad u geyso helayo sidaasay ku xidhantay taana waanu kari karnaa inagoo isku dubnaano mooye dhallinyarada ka saar kari mayno shaqala-aanta baryo laynoo fidiyo waxaanu abuuray sanduuqa horumarinta dhallinyarada oo ah in la isugu geeyo lacag dowladda ganacsatada ciddii la caawinaysa sanduuqaasi wuxuu noqonayaa sanduuq dhallinyarada hal abuur kale laga amaahiyo lacag ay soo celiyaan oo aan dulsaar lahayn oo aan ku xidhnayn yaad garanaysaa oo aan ku xidhnayn yaa kaa dambeeya iminka ninka isla baan lacag kama bank la yaab male wuxuu hubinayaa isagoo warwar qabo qofkan hadduu lacagta siin waayo inuu wixiisa waayo maxkamadu ka dheeraadaan idhaahdo qof lacagtaa soo celin kale oo anigu aan garanayo ama dhaqaale leh ama hubo ii soo sheega kuu keena boqolkiiba 90 dadka qaarkood oo garanaya lacag ama ninkii lacagta lahaa in yar halka joogo agoor aabii jawaad ku dhintay ama aabii ku dhintay tukarrag lacag iska gali maayo marka dadkii dalkan u shaqeeyay waa dulmay inuu ku badan baahan yahay soo tago waxaan soo saaray xeerkii sanduuqa lagu abuuriyay waxa kaloo ku soo dhigaalkii ugu horeeyay oo $200,000 golayaasha waxaan abiil soo jeedinaya inay ka hawlgalaan si sanduuqa loo kobcin lahaa dhalinyarada shaqo loogu abuuri lahaa amniga dalka ilaahay mahadi sanadkan ilaahay nabad buu siiyay amni buu siiyay ilaahay baa ku mahadnaq talabaad mahad labaad waxa la shacbi dhammaantood وحلا أمانته يا ما هذا ما الجراياش ورجع لك شو رجع بدن أنا هبي نبضن يا معلم بدن يا بلا بدن أي كم أغنية نبضينته شغال قوي في الجولة كذا عبر يا قلبي ويري هاي حلوانا أما وزيره أما عيدنا أو أوي أما بشي لبت شير وبيحل نبضين يا أورب يا وريك يا دت كين أو إن رجعت أو إن رقعتي هذو يهم الحرقمات هذو يهاي علمو هذو يهين جنعسته إلهي مهدين موافقة إياه سافرد أيه نكد منه وح الله يشقاقة هاي أردن ذكر ما تدرك إلى ذكر قول ولا أمر وحكروا سجن حدود هذلك لما أنتم وعلمنا قلب كسدان كجذاميه لنا هو إلى أن عدو سودافين iyagana waa uga mahadnaqaynaa qaranka xilka adaga oo hayaan waxaan u rajaynaynaa in ilaahay ka abaal mariyo dhibta ay u hayaan dhammaan ciidamada qalabka sida oo aanay dheef u dhigata ka helin laakiin dalskooda nafta u qorin ciidamada amniga kuwa wardoonka kuwa badda kuwa xabsiyada haya maxaabiista oo kuwa ugu badana iyo qolo leedahay booliiska oo iyagu maalin iyo habeen dagaal ka bixin 24 saacadood ninka booliiska ka ugu muqshay شعبك وحنا كعصنا golayaasha iyo shacabweynaha waxaan ka codsanayaa in ay la shaqeeyaan oo dhibta ka qaadaan ciidamada booliiska iyo gurmadka joogtada ah iyo dagaalkan bilaamicnaha ama xaafadaha islaaye ama reeraha islaaye
ama tuula ha islaayeen booliiska inaynu u tudhoon hawsha barka qaado ilaa haddii kale way naga dhammaanayaan bil walba nin booliis ama dhaawacan oo lagu dhuftay nabar dhagax xabad isaga oo nabad ilaaliyo laba kala qabanayo bil walba taasina waa dhibaato ay kaligaan qabno waxaan jecelahay inaan idin soo jeediyo codsi golayaasha iyo dadweynaha arrintaa in laga feejignaado oo loo shaqeeyo ciidamada amniga waxa kale oo hoos u dhacay dambiyadii ka dhici jiray magaalooyinka ee dhalinyaradu sameyn jireen 8% taa ilaahay mahadi iyadana isu tag baa ka dhacay la isugu tagay culimo ganacsato dadweyne madax dhaqameed iyo booliiskaba maantana magaalooyinkeenu 7% ku dhawaad bay ka ammaansan yihiin siday 10 bilood ka ahaayeen dhammaantood ciidamada qalabkiisa oo lama hadlayna hawsha waana hadiyay qaran waana ku ammaanay waxaan uga gudbayaa abaaraha ilaahay mahadi sanadkana dhaafay roob iyo barwaaqo ee abaaruna waa iman kara diyaar garow baa loo baahan wax tashiil baa loo baahan haddii biyaha la tashiilayo haddii biyaha la xiranayo haddii wixii dhaqaalaha lahayo la tashiilayo calafka iyo dalaga soo go'a haddii la kaydinayo oo naga khasaaraynin ee meel la dhigayo dadkii ku tabaarooy abaarihii saqar iyo abaarihii hore wax badan baa la taray oo qoys badan baa xoolo iyo lacag cadaanaba loo qaybiyay oo inta badan hay'ada inaga taageereen oo nuga mahadnaqayna cidii naga taageertayba waxa ilaahay mahadiya hay'adda kaydka raashinka inay raashin ku filaan karo muddo haday dhibaato timaado ay ku sii sababta bixi karo inay noo hayaan oo ay ku dadaaleen wixii ahayeen inay bayqaamiyeen wixii noo soo go'ayna iyaga lagu ururiyo doorashooyinka laba sano waxa naga dhabaadeen muran madhalaysa oo hal la bedelo hal kala diro commissionka iyo sharciga loo kala diro lama hayo waa commissionkii hore waqtigoodu waa dhamaaday kuwa cusub aynu magacawnay kuwa cusub waxay soo mareen jarjarada sharci cidii uu xeer ku siinayso xulaan baa soo xushay madaxweynaha la soo marinayay isna uu iskriin musaaro uu sii daayay baarlamaanka sii daayay maxkamadii baa dhaarisay haddana muranka ugu soo noqday kuwan hala kala diro yaa sharci loo kala diro ma hayo meel hala kala diro sharci waa murankii waa kii labadii sano hore ayaa imkan inagu bilowday mar haddii ay xisbiyadii qaranku ku fashilmeen inay ka heshiiyaan arrinta commissionka oo war doorashaha inoo qabteen waxa qurahay inoo furan doorasho gaari karnaa oo doorashadu waajib inagu tahay waa inuu xisbiyadii furaa horta mid baa yaab leh dadku waxay lahaayeen oo dadkooda rumaysan yihiin nimanka golayaasha labada gole ma doonayaan in doorasho dhacdo ee kursiga way xagsanayaan shacabka inta leegna xisbiyada hala furo waa u furteen taasi waxay muujinaysaa inaad diyaar u tihiin doorashooyinka عداتي ولا إنك شكلي خاص ما أنت وين عداتي إن الله سحمني وإذا كسيد جري ديارتي دور شوي كيس صعب كاود على حسب الله فوق أيها كاميرا كعي حد يا الله يراد لوان سنخساو وحن كسوق من دورها وحكم بدل هيك هابستي حيراركا كو حيران سي دور شو اللي سود تجيل هاد حزبيه الله فرق inta waxa ku daraya dad badan ayaa markay la xisbaa la furay in cabsi geliyo yiraahdaa warbuuq waa ka dhacay waa la isku qabsan
intaasoo doorashaynu soo marray waynu u bisan lahay inaynu xisbiga furano oo kii laga tira bataanka kale u haneeyo oo kii la doortaanka kale u haneeyo dhammaan dadkana waxaan codsanayaa inaynu si nabadgelyo hawsha u galno oo aynaan ku doqonniminoo cabsida laynagu akhriya aynaan qaadana aynu dimuqraadiyadna soo ceshanayno arrimaha dibadda waa hal toban dee maanta waayahay arrimaha dibadda intii xukuumadda jirtay dadaal badan waxaan u geysanay in arrinteena qadiyadda Soomaaliya xooggeeda la saaro ururka midowga Afrika waayo soddonkaa sano meel kasta oo aynu tagno iyo report kasta iyo madaxweynayaashii hore dadaalkii sameeyeen iyo golayaashii ka horreeyay ilaa golihii ugu horreeyay Cabdiraxmaan Tuur Sheekh Ibrahim Sheekh Ali Marmaantu lahaa kombiyuutarka galay Soomaaliland ilaa maanta hal erey baynu hortaagan oo ah arrintaas Afrika u taala Afrika waxa ka tiraa geeska Afrika u taala idinkeedii ka dhaxaysa bilowta wax soo dhah warna waanu saysanayeen kala saar waayahay Afrika gasho oo lagu horeysto mar haddii halkaa soo urtay 30 sanadood waxay noqotay inaynu Afrika xoog ka saaro ilaahay mahadi dadaal badan baynu ka galnay waxaan ku bushaareeyaa in maanta Afrika badankeedu u dhagan ugu shahay in qadiyadda Soomaaliland la keeno golaha Afrika Soomaaliya Soomaaliland arintooda la galo haddaba waxa kala haynoo dambeeyo guraha kale iyo halka la gaaray soo ma bilaawday halkii aad doonaysa way waxaan ka bixinayaa arrinta warkeeda maanta aad loo hadalhayo laba mid waa wixii wiiga gandhacay ilaa bish 9keedii midna waxaan dul maray 1960kii ilaa imika dhacdooyin u baahan inaan xusuusino da'yar sano u sheegno 9 bishan February waxaan u baxay magaalada Addis Ababa waxaan u baxay ujeedo kaliya ahayd maadaama Afrika ku shiraysa halka wafdi uu hogaaminayo wasiirka khaarijiguna joogay iyo aqoon-yahano kale iyo siyaasiyiin kale oo Soomaaliyeed dhammaantood iska xil saaray arrinta Somaliland oo kamid ah isnaa oo kamid ah Maxamed Biixi Yunis oo kamid ah gudoomiyaha xisbiga wadaniga Cirro oo meesha soo dhamaantay aanu kamid ah isnaa qadiyadda in la daafaco iyo laga wada oroleeyo ayaa waxa loo baahdaa ana inaan ku soo xoojiyo markii la helay dad badan oo dhigan ugu madaxweynayaal wasiir khaarijiyaal dhammaan la kiiskiin maxaa qariyay maxaa dadka wuxuu sheegay leedahay maxaa soo bixilay socdaalkan waxa 9kii waxay maalintii la doortay gudoomiyaha midowga Afrika ee South Africa madaxweynahooda maalmadan wada kala baxay inaan maanta ma soo noqonay 9kii markii aan tagay ee ololaha iyaga galay ilaa nin waxa doonayaan nin walba albaab ku garaacnay cid walba u sharaxnay ayaa habeennimadii anagu inaan soo baxno 10kii ahayd ma 10kii maalintii dambe fiidkii anagu koob joog soo baxay siyaasiyiin soo baxay ayaa waxaan la soo hadlay xafiiska Prime Ministerka waxaan u sheegay in salaasada 12 oo Prime Ministerka Ethiopia marti qaaday xafiiskiisa saacada aan runtii ra'iisul wasaaraha Ethiopia wuxuu xukumaa dalka labaad ee ugu tiro badan Afrika waa Prime Ministerka Afrika ee isagoo xilka haya helay abaalgudka Nobel Peace Prize caalamku siiyay waa nin adduunka intiisa badan iyo dadka la yiraahdo waxbay faaqadaan ama researcherska iyo cidda wax qorto dhan ay aad iyo aad u taageeraan oo loo arko inuu yahay ninka sameynaya isbedel geeska Afrika oo dhan isbedelkaas oo nabad isdhexgal iskaashi iyo horumar ku qoto aad baan uga raayaan farxad markuu wacay inuu chance ay siiyo hal baan ku tagay aad u ordaay يا حفيزك سكوتي كويتو سلام يكفك بعد ابي روسكو سلام وحي شيغي in madaxweynihii Soomaaliya farmaajana uu soo galaayo oo dhex soo jiro hada soo galaayo halka markii ba isna waa yimid saddexdeed halka waxaan ku galay shir
aanan kolley anugu warshihiisa hore u sii ogeyn kana diyaargaroobin aanan maankana ku ahayn inuu sidaa fudushkaas u dhacayo waa si kumaateen wasaaraha Itoobiya haddii sidaa noo ixtiraamay oo isagoo oo Afrika oo dhan kuyugu jirto oo shirki ku jira arrintaas qadiyadda Somaliland iyo Soomaaliya inuu saa u dareeyo waa uga mahadnaqay halkaa laba waxaan muddo yar baan joognay wixii lagu hadlay wuxuu ahaa Prime Minister Abiy wuxuu yiri waxaan doonayaa oo diyaar oo soo diyaar garoon soo xarkaynay inaan dhex galo dhibaatada dhex taala Soomaaliya iyo Somaliland way raagtay waa arrin Afrika u taala waa arrin geeska Afrika u taala marka arrinta waa galaya Somaliland diyaar mahay waan aqbalay inuu arrinteena soo dhex galo ra'iisul wasaaraha dowladda Itoobiya halka wax ka badan maxamed cabdullaahina waa aqbalay inta wax ka badan oo barnaamij iyo ajende iyo faahfaahin midna lama gelin waqtigeeda lama hayn madaxweynayaal baa meesha istaba socday inta iyo sanaaniyo waa yahay aanu diyaar garoonayo waanu diyaar garoobina ayaan ku kala nimi waxa kale oo jira dawladda dhowr oo Afrika leh oo Yurub leh oo Asia leh oo ku jiray arrinta inay dhex galaan Soomaaliya iyo Soomaaliya waxa kamid ah Turkiga waxa kamid ah Sweden oo labaduba noo yimid iyagoo wada socdaalka noo yimid oo ku diyaar baan u nahay wada hadal kartaydu way noo duubanta geed walba diyaar baan u haynaa kartaydu ku gallo annaga u baahan wax dhex gala labada dawladdu waxay waliba culays badan saareen madaxweynaha Djibouti oo yiraahdeen adiguna nagu soo biir haddaan nahay Turkiga iyo Sweden oo isaguna ay soo weydiiyay oo yiri arrintaas la yiraahdo maxaan ka yaraan kuri aad iyo aad baan soo dhaweynaa inaad soo gasho cid wal arrinta soo galaysa waan u baahanahay gartaydu way noo go'antay fagaara kama baqayno war ma qabno gartaydu way noo taala waa noo duwantay arrintaas intaas ku dhamaatay saas aan soo kala mudday bishan 13 February ayaa waxa dhacday arrin kulliba aan badan anigu aan filayn dadka badankooda aan filayn madaxweynaha Soomaaliya ee hadda jooga Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wuxuu bixiyay raali gelin wixii xasuuqi ka dhacay Somaliland sanad qarnigii tagay dabayaaqadiisii oo dhan 8 kilo oran maayo 9 wuxuu ka soo bilaabay ilaa 60 maalintii kalaabkii xasankeed iyo lagu diray ninkii sarkaalka ahaa dhinaca raali gelintaasi waa ninkii u horreeyay Xasan Sheekh marbu si dulmara u yiri waan ka xunaa wixii ka dhacay dhibaatooyinkii dadka ay ku dhacay laakiin faahfaahin ah dilkii iyo qaxii iyo burburkii iyo wixii ku dhacay halka raali gelin baan ka bixinaynaa anoo madaxweynaha qaranka Soomaaliya ah waa arrin aad iyo aad aniga kadkiigu ahay marka laga reebo qodobka ah kuwii hubka qaatayna cudurdaar baa laga rabaa marka qodobka laga reebo raali gelintaasi waxaan u arkaa inay tahay in talaabo loo qaaday dhinaca nabadda iyo iskaashiga iyo in arrintan la soo dhaweeyo waana soo dhaweeyay waayo garusho waasa erayada qaar oo dadka qaarkood laga yaabo inay siyaalo akhriyaan waxa ka weyn adigoo qura kulama hadlayo ninka hadlaya raaligelinta bixinay inta in lagu ka soo horjeeda oo aan saa warkaynin ayuu la hadlay caalamka la hadlay marka maanta halkaas waxay ahayd bilow fiican oo arrinta laga geli karo garowshahaasina waa koow anna waa gudoomin waxa raacay hadaba waxa xumeeyay oo ka dabiyay arrintaasi hadal haynta imaatinka madaxweynaha Soomaaliya la yiraahdo geeso imanaya waa laba aan qaban raali gelin baa bixinaya oo waxa soo damiya qaranaya iyo waan imanaya waa laba aan qaban gadaal baynu ka hadli doonaa waxaan ka oranayno imaatinkiisa laakiin waxaynu raacaynaa maxaa dhacay hadaba raali gelinta maxay ku timi maxaa dhacay Jamhuuriyadda Soomaaliland 73 sano waxay ahayd mustacmaradii ama maxamiyadii
mustacmarad maaya maxamiyadii ingiriiska 1960kii bishii Juulaay kowdeedii Somaliland iyada oo dawladda oo lixda dawlad ahayd oo ahayd dawladdii 15aad ee Afrika ay xorriyadda ka qaadatay mustacmaraadka oo ay aqoonsadeen 35 dawladood ayaa waxay la midowday dawladdii ka dhalatay Soomaaliya oo markaa ahayd meel ay dusha ka ilaaliyaan sicooda qurmaan ka dhaxaysa oo maalinta Talyaaniga loo dhiibay Talyaanigu haystay ayaa kowdii Juulaay xorriyaddeeda qaadatay bal qabso iyaga si gaar ah ma itiraafin shardi kaliya ayay Soomaaliland kula midowday Soomaaliya iyo koonfurta shardigaasi wuxuu ahaa in la helo shantii Soomaaliyeed oo midooba taana waa la waayay 30 sano oo la raadinayay madaxweynihii ugu dambeeyay ee Soomaaliya wuxuu si rasmi ah uga noqday midnimadii la raadinayay shanta Soomaaliyeed dabayaaqadii qarnigii tagay waxaana ku caddahay komunikeeyadii ka soo baxay shirarkii uu ku galay Djibouti iyo Addis Ababa waxa kale oo jooga oo caawa nool markii laga soo noqday dagaalkii 78kii shir uu wasiirada isugu yeeray rag nool caawa oo Hargeysa qaarkood joogaan markii uu soo jeediyay ku daalay raadinta Soomaali weyn oo waynu ka noqonaynaa danteenu ka raacayna taasina waa dhaabad meertada markii loo codeynayay dastuurkii midnimada sanadkii 61kii dadka Somaliland boqolkiiba 8 baa diiday aftida iyo dastuurka lagu midoobay waxa ka horeysay ma jirin maxay u diideen Somaliland markaa yaa la soo diiday waxa u diideen ma jiro ilaa maanta mana dhamaystira axad lagu midoobay oo labada dawladood saxdeen heshiis ahaa oo dhamaystiran oo xeer caalami ah noqon kara ma jiro 30 sanado midasay marxaatigeeda la sheegay inqilaabkii 10 December ka dhacay Hargeysa ee saraakiishii Somaliland ee ciidamada ay doonayeen inay ku soo celiyaan xorriyadda markay arkeen inaan heshiis axadi jirin oo ka dhaxeeya labada markii la xiray radii inqilaabka wada xasan kaydii lahaa Allah u xaqiijiyo maxkamad baa la geeyay xamar ku taal 2 sanadood maxkamadaas socotay markii maxkamadii gunaanadkeedii la soo gaaray waxa jajka ahaa nin Ingiriis ah oo la yiraahdo Mr Hazelwood waa ka helsan Google cid walba ogtahay wuxuu ku dhawaaqay inaanay dambi lahayn waayo ma jiro axad midaysan oo laba dawlad galeen marka waxay daacad yihiin oo hadii ay ciidan xisaabtamaysa dawladii Somaliland ma jirto dawlad madaxweynaha uga jooga cad oo qaad kara saasan ku soo baxay waa marxaati cad inaanay marna dhamaystirmin midnimadii aan lahayn maxaa ku xigay markii dastuurkii loo codeeyay ereyga aan maqasheen aadayaalays iyo walaweyn oo atu magaalada yar markaa oo mid walba ay ka codeeyeen wax ku dhadhow 200,000 dalka wajiyo waa marka ay soo baxday maxaa intaa ku xiga dhacay markii dawladii la dhisayay dawladii ugu horeysay ee midnimo lagu dhisay waxay ahayd 14 wasiir saddexda Soomaaliland dhisay xaruntiina xamar bay noqotay madaxweynihii iyo prime ministerkii iyo saddexdii taliye ciidan intaasna ku wafaq qaatay ka soo gudub dalka Soomaaliland wuxuu ahaa maalinta la midoobay 6 degmo Boorame Hargeysa Berbera Burco Laascaanood iyo Ceergaabo 6 degmo districts bay ahayd
koonfurtu waxay ahayd 6 degmo majeerteria hiraan mudug jubada sare jubada hoose maxaa dhacay koob iyo 6 maxaa la sameeyay waxaa la soo saaray gobollada dalku ka koobnaanaya midaysan ee Soomaaliland 6 degmo ee Soomaaliland waxa laga dhigay 2 gobol oo qura gobollada bari oo Burco xarun tahay iyo gobollada galbeed oo Hargeysa xarun tahay 6 degmo ee koonfurta 6 gobol baa laga dhigay ka soo gud dagaalkii 77 iyo kii 64kii labadaba boqolkiiba 70 miisaankiisu wuxuu ku dhacay Soomaaliland magaalada Burburiyo baraka qaxooti culayskii ciidamada culayskii jabhadaha iyo wixii dhacay weyn oo leh tafaasiisha halka galbeedna khasaaraha iyo culayska dalkaas lahaa mid u mar way socda gobolada waqooyiga waxa la keenay qaxooti tirintu gaaraysa 400 oo kun waxa 12 xero looga dhisay Soomaaliland jalaqsi oo kaliya ayaa xero looga dhisay koonfurta inta ay midaysnaayeen labada dal wixii dhaqaale horumarina ama mashaariica ee caalamka ugu deeqay bariga galbeed wixii laga guraayay Ruushka Mareykan iyo Carabba oo bariga aad u irmaanaa boqolkiiba 7 kaliya ayaa ka soo gaaray Soomaaliland oo ahaa wadada ka soo Burco soo gaadha ilaa iyo socota Hargeysa galbeedka u baxday ku ekeed kala baydhka iyo warshadii sibirka ragina wada joogtay ka mid baa hay'adaha lagu daray wax kala wahay halka markay marayso waxa lagu dhawaaqay asal si loo raadceeyo xorriyadii Soomaaliland ee luntay 60kii dagaalkii ugu weynaa wuxuu dhacay 1988kii dawladdii markaa jirtay waxay soo weerartay shacabkii iyo magaalooyinkii Soomaaliland boqolkiiba 90 magaalooyinka qaar ayaa la baabiyay magaalooyinka waaweyn oo dhan waa la burburiyay buuga ay qortay dawlad dadkeedii dilaysa raaqiye ay qoreen qolada maartay xuquuqda aadamiga ayaa sidii tiin u hayay muddo 2 wiiga waxa lagu dilay 50 kun oo qof magaalada Hargeysa iyo Burco iyadoo magaalada ka weynta leegay diyaarada magaalo walba ay burburinayay haddana meelaha dadku badan waxa lagu weeraray diyaarado taangi madaafiic iyo gaasas ciidamo lugaha waxa barakacay 600 oo kun oo deganaa magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland mid walba gobol walba ayaa ka qaxay oo u farxaday gobolada jaarka ah iyadoo xiriye waaweyn looga sameeyay bariga Itoobiya kontanka kun ee hore ee wiiga diyaaradaha iyo madaafiicda taanku laayeen in ka badan oo ilaakeeda ayaa sirc iyo darxumo u dhimatay umul daare waayeen waxa la baabiyay boqolaal sano wixii ay tucanayeen Soomaaliland ee adduunyaha ee aqoonaha ee buugaha waxba laga bixin waa la cirib tiray taariikhda Soomaaliland si ula ka soo baabiyay hay-adda jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa human rights qaabilsan iyadoo kaashanaysa unuga ama unitka u qaabilsanaa Soomaaliland UNCO codkooda heli kartaan Google 2001 waxay ka marag fureen oo xaqiijiyeen qoraalkooda ku qoreen wixii ka dhacay Soomaaliland dawayaaqadii qarnigii tagay ee dawladdii Somali Democratic Republic ay ku samaysay inuu ahaa xasuuq bini'aadam
وأمرك مطور وأنا تكبر فراية فرماتش أدرك الأولى وحل حد شيء وإمك الله يا سهل كذا صدق هي أفرتن حبارة وضريت ودتك قاربا إيجا أو النور كل شيخ مجرد له أنت دتك نقول شيء جوف لقول إيجا أو النور إسكروي لقول قاربا إيجا أو النور قبل الجوجل waxaa marka soo socdo iyadoo waxaa soo dhameeyeen 18 May Soomaaliland burcay soo tiri markay aragtay Soomaaliland wax galadkeedu ugu dhamaan markay aragtay inaanu jirin axad midaya Soomaaliya Soomaaliland oo dhammaystiran oo caalamiga sharci qabanaya markay aragtay sida dowladda Soomaaliya ee la yiri hada doorashadii Soomaaliya loogu hukumay in Soomaaliland ay warga u tashaday markay Soomaaliland aragtay in dowladda Somali Democratic Republic ay si toos ah uga noqotay balantii ahayd Soomaaliland hal doomo markay aragtay Soomaaliland ay garowsatay burburka iyo dulmiga iyo dilka iyo dhaca iyo xumaynta loo geystay iyada oo madax dhaqameedkeeda siyaasigeeda suldaankeeda jabhadkeeda ciidan beeleedkeeda isu dhan waxay go'aansatay in dalka lagu soo celiyo halkii uu joogay 26 Juun 1960 oo uu gaari karay waa rabitaanka shacabka waa codka ugu weyn ee xaqiiqi kara waa codkii maalintii hore shacbiga Soomaaliland ee shuruudaha lagu geeyay xamar la yaa garaad waa dadkii lahaa midnimada la doonaya waxba ku soo Soomaaliland soo doonaya maanta waxay leeyihiin ma waa noo aadnay ku noqon mar intii ay saddex ka sanadood kala maqnayn intii ay jirtay Soomaaliland waxa taa ka dhacay wixii hore dhacay صدق سنة دولة الصومالية استجد به تماما تنقطع دجال كاي هرا كأذن وعالم كأورنا أيه أوجره إن أنا الصومال الهندي إن عرقبة تيار إن أدون كل كوتش سنة وأدون الصومال إن أحي قراء أي أدون صدام أو قارن كله أي أدون وأنا الصومال الهندي markaan soo koobo dawladdan Soomaaliya maanta ee Maxamed Cabdulaahi hogaaminayo waxay ahayd tii ugu cadaawad badnayd intii dawladda soo martay in kastoo maanta raaligelin uu bixiyay oo moodaysa inuu wado wanaagsan baanay waxba ka daba keenay waxay ahayd dawladdii ugu cadaawad badnayd ee dagaalka ugu kulul la gashay Soomaaliland si ay dhinac uga dagaalanto dhowr qodob ka soo qaaday waxa kamida horjoogsiga dhaqaale iyo cunaqabataynta ee iska hortaagtay Soomaaliland in caalamka ay cid baxay la yeelato ku wax siinaaf inaanay cid bal la baabshay karin inaanay cid wax siin karin waxa wada ogsootay dagaalka ay ka gashay mashruuca ballaarinta berbera ee bareerka ah waxa kamida horjoogsigii sanduuqa mashaariicda u gaarka ah Soomaaliland ee dawladdu ka siirayay special arrangement Soomaaliland ee ra'iisul wasaaraha jooga intuu qoray inay lama sii karaan ka dawladda bal hadda dhigo ma la wixii soo dhacay iyo wax marinay waxa kamida horjoogsiga heshiiska ay wada galeen xasan sheekh oo isaga horreeyay iyo sidaay ee hawada iyo lacagta hawada ee walahayn in la qaybsado oo qoraal ku aqoon warweyta qaadan si loo maamulayo oo ay ku doodeen ikaw anaga aan ictiraafay cid kale lama hadlo oo ila ma tahay waxa kamid ah in wax alliyo wixii dhaqaale ah ama deeq ah waxbarasho caafimaad infrastructure ee caalamku ku bixiyo magaca dawladda Soomaaliyeed ee dhaxaysay
inay ku go'aansadeen dhammaantood in aan Soomaaliya waxba loo gudbin ilaa iyaga loo soo mariyo Soomaaliland taa way diiday codkuna ma soo saxeeyay waxa kamid ah inay dagaal gasho oo xilka u geyso dawlad kasta iyo hay'ad kasta oo xurmayso ama maamusta Somaliland qaran ahaan iyo qof ahaanba tusaale waxay loogu filan inay gini cilaaqaadka u jirtay markay magaca Somaliland iyo shacabka Somaliland karaanaya maamus muujisay waxaan ku soo koobayaa waxaa soo dhacay 60 sanadood dul xaadiska ah oo kun buug beej laga qori karo oo dokumentigooda iyo waaqicigooda hay ee aan ahayn la kaciya caadifad maanta Soomaaliya iyo qolada koonfur badhoho laba qodob ay been walaaltinimo iyo iskaashi iyo nabad ku gaar kara laba qodob oo kaliya balanka mid saxada ay keen Soomaaliya qolada koonfur inay xishmayso oo xurmayso go'aankii shacbiga Somaliland iyo xaq ay u leeyihiin inay go'aankooda iyo rabitaankooda kaga baxaan midowgii ay sida toddobaadnimada u galeen ee shacbiga Somaliland gaaray 18 May 1991 inay ixtiraamaan kaliya ay ku heshiin karaan laba waxaynu walaal noqon karnaa iskaashan karnaa jaar wanaagsan noqon karnaa marka Soomaaliya madaxweynaha jooga ka bilaabo iyo kuwa soo socda ha maqleen marka ay aqoonsadaan qarannimada iyo madaxweynaha jooga Soomaaliland ee qiraan inaan wahay laba dal oo midoobay iyaga oo aan isqasbin oo frontier maantana si xor u kala baxay taasi waa conclusionka ee ahadii Soomaaliland gaadhay burco distoorkeenu ku dhisan yahay qof kasta dalka hogaamiyana ku qasbay waan kala hadalnaa waxaan u soo degayaa hadal haynta madaxweynaha Soomaaliya imanaya Soomaaliland hargeysa imanaya horta waa hadal hayn laakiin hadal haynta waxu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi talaabo wanaagsan uu qaaday markuu yiri falgalin baa mixi laakiin wuxuu ku diray markuu yiri waan imanaya hargeysa oo sidee ku imanaya isku diray sidee ku imanaya xeerarka caalamiga ah curfiga dawliga ah aqliga saliimka ah midna ma qaadan karo ninka dawladiisii iyo dalkiisa oo ka madaxda yahay waxa soo dambiye aan galeen ayaa dadku waxa u geystay waliba oranaya anigoo madaxweynaha gobolada soo siyaarinaya Soomaaliya waan maraya macno soo wado soo inta ma oo taameen aqbalayna maya ma yeelayno suurtagal ma aha waxaan ku talin lahaa maxamed madaxweynaha Soomaaliya talaabo cabad ah raali gelin baad bixisay waxaan u qaadanay inaad nabad iyo caqli ay soo socoto laakiin ku ibsan mayno inay laga yeeyo waan ku siyaarinaya taasi waxay dhalinaysaa caro horne iyo colaad horne iyo cadaawad inaan u baahan loo baro markaan soo koobo hadal haynta anu wax kale oo garagaran maaye aan ku cabirey gabayga faarax uu kala gooyo ma arinta ka jawaabay faarax wuxuu yiri qosol beera qoral qayaxan qeylan garanay qoraana fi laga qafilay qadarno hoosiyaalay toqon baa halkii lagu qatari qoorta soo dhigay maaniga mid la qarshaa la iga qalay lama baaranine qarayana nabad waryaara kala muuqsan ee qomaraana wasalaam calaykum